assalaamu calaykum soo dhowaada asxaabta. qof aadanaha ka mid ah haddii uu yidhaahdo xiriir ayaa igala dhexeeya hebel ama heblaayo, waxaa laga yaabaa qofkaasi in wax badan uu u taro xiriirka. sidoo kale koox, maamul, shirkad ama dowlad haddii uu kala dhexeeyo xiriir koox kale ama dowlad kale, waxaa dhici karta in xiriirka ay dheefsadaan in muddo ah. maxaa yeelay in xiriir uu kala dhexeeyo qof kale waxa ay ka dhigan tahay inaad haysatid qof aad isfahansan tihiin, inaad leedahay asxaab aad isgarabsan kartaan, in ay jiraan dad aad wax isdhaafsan kartaan, sida inaad isdhaafsataan talooyin, fikrado, caawinaad iyo wixii la midka. waxaan kala jeedaa hordhaca in haddii xiriir lala samaysto cid kale ama calaaqo lala yeesho jiha kale, ay u badan tahay in faa'iido laga helo, ha yaraato ama ha weynaato. laakiin xiriirkii kala dhexeeyay ciddaas kale ama jihadaas kale haddii uu xaggaaga ka xumaado, waxaan malaynaynaa inaysan naga qarsooneen dhibaatada ka dhalan karta xiriirkaa go'ay. waxa ugu yar ee ku soo wajahaya waa inaadan ka sugin qofka xaggiisa ama dadka xaggooda wax kaalmo ah, ama ugu yaraan waxaan dhihi karnaa inaadan ka helin wax waxtar ah haddii xiriirka uu go'o. iyadoo ay sidaa tahay, bini'aadam kula mid ah ayaa haddii xiriir aad la samaysid aad ku faa'iidaysaa xiriirkiisa, ama ugu yaraan aadan ku khasaarayn. balse ka waran haddii aad xiriir la samaysid rabbiga caalamka. ka waran xiriirka aad alla la yeelatay haddii uu yahay mid wanaagsan oo uu raalli ka yahay Rabbi. waxaa intaa oo idil kaaga sii daran oo kaaga sii muhiimsan, ka waran cidda aad xiriirka la samaynaysid haddii uu yahay khaaliqii ku abuuray oo uusan ahayn makhluuq adigoo kale ah, haddana weliba isagoo ah allihii ku abuuray in uu raalli kaaga yahay inaad xiriir la samaysato, amaba uu isagu kugu baaqayo inaad xiriir la yeelato. xaqiiqdii arrintaa waa mid la yaab leh oo raad togan ku reebi karta qofkii u fiirsada oo maanfayow iyo maskax bad qabta. sababtoo ah alla weyne, xiriir wanaagsan inaad la samaysato waa wax anfacaya qofkii alle xiriir la yeeshay. balse alla mar kasta waxaa u siman in addoonkiisa uu noqdo mid baari ah oo ku xiran, iyo inuu noqdo mid caasi ah oo colaad ula banbaxay. mar kastana alle cid la dagaali karta ma jirto, ama cid ka hor imaan karta oo amarkiisa amar dul saari karta. ciddii maankeeda oo yar darteed u malaysay in alle oo la caasiyo ama laga hor yimaado ay wax fiican tahay, waa cid siran oo lug go'an, laf cidla ahna toobin ku haysa. hadhow markii alle ay hor istaagto maalinka qiyaamaha, aan jawaab saxan bixin doonin. haddii aan tusaalooyin u soo qaadanno nebiyadii alle sida ay rabbigood xiriir wanaagsan ula lahaayeen, waa kan nebi yuunis oo qoomkiisa ay ka caraysiiyeen markii uu alle xaggiisa ugu yeeray, halkii ay ka rumayn lahaayeen beenin iyo waxay isugu dareen aflagaado, heer uu gaaray in nebi yuunis uu ka cararo qoomkiisa oo isaga tago. markiina waxa uu helay dad safar ah oo badda ku safraya, iyagii ayuu raacay. markii ay badda dhexdeeda ku fogaadeen ayaa doontii ay saarnaayeen dhinacna u dhaqaaqi weysay. dadkii doonida saarnaa waxa ay waayeen sabab kale oo ay ku badbaadi karaan, aan ka ahayn inay qoryo-tuur samaystaan oo qofkii uu ku soo baxo qoryo-tuurka in badda lagu tuuro si ay iskaga khafiifiyaan culayska oo doonta ay u fududaato. markii ay qoryo-tuurteen, qorigii waxa uu ku soo baxay nebi yuunus. way ku celiyeen, isagii ayuu mar kale ku soo baxay. mar saddexaad ayay haddana ku celiyeen, isla nebi yuunis ayuu ku soo aaday. markii saddexaad ee uu ku soo baxay ayaa waxaa la sheegaa in uu baddii isku tuuray nebi yuunis. markiiba nibiri ayaa liqay. markii uu liqay ayuu alle qadaray in nibiriga uusan burburin nebi yuunis jirkiisa, oo caloosha nibiriga ayuu ku dhex jiray muddo 3 maalin ah. markaa ayuu tasbiixsaday nebi yuunis. isagoo halkaa ku jira ayuu alle baryey. markiiba alle ayaa baryadiisa ajiibay oo nibirigii ku amray inuu bannaanka u soo saaro nebi yuunis isagoo bad qaba. sababta uu alla sarreeyo u badbaadiyey nebigiisa yuunis wuxuu inoogu sheegay in yuunis markii hore uu hagaajiyey xiriirka kala dhexeeyey rabbigiisa inta uu caafimaad qabay oo barwaaqa sooranka uu ku jiray. dadku markii ay hagaajiyaan xiriirka rabbigooda kala dhexeeya xilliga ay caafimaad qabaan oo ay nabdoon yihiin oo barwaaqa sooranka ay ku jiraan, allah subxaanahu wa tacaalana wuxuu hagaajiyaa xiriirkooda xilliga culayska, kurbada iyo dhibaatada ay ku jiraan. nebigeenna Muxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, ayaa inooga sheekeeyey sheeko micnaheedu yahay sidaan. nin iska maraya waddo oo ummadihii hore ka mid ah ayaa waxa uu maqlay hadal loo jeedinayo daruurta oo lagu odhanayo waraabi beerta hebel. nin magaciisa ayaa la sheegayaa. daruurta markiiba waa ay leexatay, meel shiilo ah ayay biyihii ku shubtay. biyihii god ayay qaadeen. ninkii hadalka maqlayna waa uu soo daba kacay biyihii. wuxuu arkay nin beertiisa iska dhex jooga oo biyihii u kala leexinaya jihooyinka beertiisa. ninkii ayaa weydiiyey magaciisa, wuxuuna u sheegay magacii uu goor dhoweed uu maqlay.
markii la lahaa daruurta beerta hebel waraabi, waxa uu weydiiyey waxa uu ku sameeyo beertiisa. Waxa uu yiri 3 meelood meel waan sadaqeeyaa, dhiga labaadna aniga ayaa cuna oo reerkayga ayaan biil uga dhigaa, qaybta saddexaad ee soo hartayna beerta ayaan ku soo celiyaa. Ninkaas waxa uu darajadaas ku gaaray xiriirka uu la lahaa Rabbigiis. Hooyo Soomaaliyeed ayaa ii sheekaysay, waxay igu tiri wiil yar oo aan dhalay ayaa subax barqo ah isaga oo soo toosay lugta ay xanuuntay, wax yar kadibna barar ay isku sii bedeshay. Waxaan ku iri ayay tiri, hooyo isbitaal aan ku geeyo. Wuxuu ugu jawaabay, maya hooyo. Waa uu soo weysaystay, qolkiisa ayuu galay, quraan akhris, salaad iyo allabari ayuu isku daray. Maamadii waxay ii sheegtay wax yar kadib isagoo fiican oo lugtiisa ay u fiican tahay ayuu ii yimid, alle ayaana ka dulqaaday xanuunkii. Xiriirka Rabbi oo kuu hagaaga, faa'iidada iyo abaalmarinta laga helo adduunyada oo kaliya lagama helo, ee xitaa aakhiro ayuu kula tegayaa. Oo qofkii dhinta isagoo oo Rabbigii uu kala dhaxeeyo xiriir quman, waxa uu galayaa janno, waxa uuna Rabbigii ka helayaa abaalmarin aad u wanaagsan oo ay ugu horeyso in Rabbi uu ka raali noqdo, uusan u caroon, in nebiyadii uu jannada rafiiq kula noqdo, in nicmo walba uu doonayo uu helo, in tamashliin iyo dalxiis uu kaga dhargo jannada dhexdeeda xilli aysan jirin daal, hurdo, gabow iyo dhimasho toona. Haddaba daawade, aan hagaajisanno xiriirka Rabbi inagala dhaxeeya, aan keligii caabudno, aan toobada ku dadaalno, aan cibaadaadka ku dheereenno, aan alle la koodno xilliyo gaar ah oo aysan dadka kale naga warqabin, aan dadka ammaan gelinno, aan barashada diinta iyo koryeelkeeda ka shaqayno, aan dadka wanaagsan la saaxiibno, aan khalqiga alle waxtarno, aan qaadno waddadii Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis dushiisa ha ahaatee, aan ka tanaasulno gaabiska iyo gabadfalka, aan isa saxno oo wax kasta oo naga khaldama aan ka shaqayno sidii lagu hagaajin lahaa. Innaga ayay dan inoogu jirtaa adduun iyo aakhiro. Haddii aad tiraahdo goormee ayaan hagaajinayaa xiriirka Rabbi igala dhaxeeya, waxaan kugu jawaabayaa goor walba aan hagaajinno xiriirka alle inagala dhaxeeya, gaar ahaan xilliyada munaasabadaha sida munaasabadda bisha Ramadaan oo ah xilli khayr badan uu ku tilmaamay suubanaheena. Aan hagaajinno xiriirka Rabbi inagala dhaxeeya xilli walba oo aan isniraahno waa uu gaabtay ama waa uu daciifay xiriirka Rabbi inagala dhaxeeya. Aan hagaajinno xiriirka Rabbi inagala dhaxeeya waqtiyada ay qafladda jirto oo dadkoo idil ay wada qafladaysan yihiin. Sidaa haddii aan yeelno waan liibaanaynaa adduun iyo aakhiraba. Waad ku mahadsantahay daawashada. La wadaag asxaabtaada adigoo ugu sheer gareynaya baraha aad isticmaasho.